daawadayaasha qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka dunida aan ugu talagalnay barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan ku soo qaadan doonaa Jim Arrington oo ah ninka adduunka ugu da'da weyn xagga jirdhiska kana soo jeeda dalka Mareykanka ee gobolka California. Daawadayaasha qiimaha badan waxaan rajaynaa in aad channelka aad ku xirnaa doontiin subscribe-na asaara doontiin. Jim Arrington waa ninka adduunka ugu da'da weyn xagga jirdhiska kana soo jeeda dalka Mareykanka ee gobolka California. Jim wuxuu dhashay taariikh ahaan 1 September 1932. Jim Arrington oo dhashay waddanka Mareykanka wuxuu in muddo u tartamayay dhacdooyinka jirdhiska muddo 10 sano welina uu sii socdaa oo aan muujin wax calaamado ah oo daciifinaya tartamadii u gali jiray. 89 jirkan ayaa lagu tilmaamay inuu dhererkiisu yahay 172.5 cm, culayskiisana waxaa lagu sheegay 74.8 kg. 89 jirkan ayaa ka soo muuqday masraxa tiyaatarka waddanka Mareykanka 2020 wuxuuna ka qayb galay tartamo gaaraya 62 wuxuuna ku guuleystay 13 ka mid ah. Jim oo ku koray sidii ilmo yar oo jiran oo caata ah oo dhalinta xaafadda igu yeeri jireen naynaas ahaan lafaha maqaarka. Inta badan dhalintu markay ku wada nooshahay xaafad qofka muuqaalkiisa ama astaan kaftan ahaan wixii lagu arko ayaa loogu wacaa, laakiin Jim Arrington dhalinta xaafadiisa waxay ugu wici jireen lafaha maqaarka oo looga jeedo caato. Jim wuxuu arkay noloshiisa inay gabi ahaanba isbedeshay markii uu helay dhismaha jirka maalmaha kamida markuu ahaa 13 jir. Jim wuxuu dhex mushaaxayay magaalada markii indhihiisa ay ku dhaceen joornaal jirdhiska ah oo isla markiiba soo jiitay. Jim Arrington oo dhashay waddanka Mareykanka isla daqiiqadii waxay dhalisay inuu han u helay isboortiska jirdhiska iyo tartamada caalamiga ah inuu ka qayb galo. Sanadihii oo dhan Jim wuxuu la soo baxay muuqaalo cajiib ah wuxuuna bilaabay inuu ka soo muuqdo tartamada jirdhiska ee Mareykanka oo idil. Maanta Jim wuxuu si fiican uga soo muuqday dadka dunida ugu caansan buugga caalamiga ah ee lagu magacaabo Guinness World Record. Buugga dhacdooyinka dunida ayuu galay. 89 jirkan u dhashay waddanka Mareykanka ayaa kula dardaarmay dadka dhalinyarada ah inay markasta ku dadaalaan jirdhiska ayna muhiim u tahay marka ay noqdaan da'da. Ninkan markaa fiiridid Jim Arrington wuxuu jiraa 89 sano, haddana waxaa cajiib ah habka uu u jimicsanayo iyo marka uu jimka galayo. Haddaba Jim Arrington wuxuu tusaale u yahay dhammaan dhalinta ku nool dunida oo idil. Haddaba waxaan iga codsanaynaa daawadayaasha qiimaha badan inaad channelka soo booqatid markasta, subscribe-tana aad saaratid si aad ula socotid barnaamijyada ka bixi doona channelka Masraxa Official.